shakada sababta doonaya inay ka shaqeeyo waxa xoogaa inaan yaro furfuran baan doonayaa marka qof walbana uu soo yara jeesto kadibna su'aalaha isweydiin doonaa su'aalaha qof walba waxa uga baxay ayuu jawaabta nala wadaagi doonaa haddii la yiraahdo marka waxaan jecelahay marka inaad attention soo wadi jeesaan xoogaa waa shaqeeya khalkhalmeedana marka qof walba jawaab buu bixin doonaa oo inaga mid asaas soo wadaagi doontaa marka dhageysi waa insha Allah taala shirkadu wax ku laabanaysaa marka ugu horeysa waxaa jiray saddex nin waxay ahaayeen saaxiibo markaa saaxiibaha aadeen ma xumeen waxay ku tashadeen inay israacaan oo safar wada galaan marka saddexda nin markii ay ku tashadeen inay israacaan oo ay safar wada galaan waxay go'aansadeen heshiis bay kala qaateen heshiiskaas wuxuu ahaa in saddexdooda israacayaan nin inuu jiro nin saxiisita ama wax sita mid jira inuu kale ma midna jiro adu mas'alada anu mas'alada ma ibn baati sama marka saddexda nin safarkooda bilowgeedii waxa ku wada tashadeen ama isku raaceen marka maadaama aanu nina wax basidan in wax kasto la wada helo la wada si siman loo wadaago ama si siman loo sheekareeyo marka walihay safarkii baa la galay safarkii markii la bilaabay safarkii la galay safarkii uu dheeraa waxay ka gudbayeen nolol badan dhowr maalmood bay sii socdeen aad bay u gaajoodeen aad bay u daaleen kadib waxa dhacday waxay adkaystaanba waxay tageen meeshii u socdeen marka meeshii u socdeen markii ay gaareen waxay dhaheen nimankeena sidan u eegay ma geli karno magaalada waxay sameeyeen caawin halka iska seexan oo magaalooyinkana waa idin habeenkii dadku iyagoo wada nooc kale oo labisan oo haybaysan bay soo baxay marka nimantaas oo dhan soo socday magaalada habeen ma geli karayaan talabaadna sharcigii ay meesha ku gal lahaayeen ma haystaan waxay ka baqayaan in lagu qabsado sharciga marka labada qodob isbiirsaday waxay noqdeen inay magaaladii ka joogaan magaalada kadib baa waxa dhacday waxay sameeyeen halkii bay ku hakadeen marka habeenkii way seexdeen markii ay seexdeen baa saddexdii nin mid ka mid ah ay habeenkii waxa ka soo dhacday lacag baa ka soo dhacday lacagtii markay ka soo dhacday marka waa tii la isku ogaanay wax walba la wada helo in la wada qaybsadaa la isku ogaa marka ninkan lacagtii mu qarsinayay marka waxay dhaheen labadii nin baa ugu takaceen baa mid ka mid ah kii helay ayaa kii kala kiciyay wuxuu ku niyo intii gaajoonay meel walba silac kasta soo maraynay lacag bayn haysanay lacagta ninka baan haystay wuu naga qarinay markaas wuxuu ku way kan sameynaa lacagta aynu kala qaybsano labadiina bay isagana aynu hawada ka saarno in hawada u dirno okay sidii bay ku heshiiyeen labadoodii baa lacagta kala qaybsadeen haba kala qaybsadaan ma xumee subaxii markii waagi markii baa soo kacay uu isbaar lacagta umbuudi lacagta leedahay warsan inagii soo adigii nagu markan soo raacin wax lacag ma siteen lacagtii waxaad ka shaqeynaysaa waa maxay kadib wuxuu yiri ma lacag baa sidaa waa la isqabsaday muran nimankii isku ogaa marka inay subax magaalada galaan muran iyo buuq ka dhexeshay muranki iyo buuq isku haysteen war lacagtii waad qaadateen iyo maan aan qaadan baa waagi markuu ku bariyay ciidamadu ma soo tafaru ciidamadii baa u yimid ciidamadii marka u yimaadeen oo kadibna markay ciidamadii u yimaadeen ay waxay ku dhaheen waa la qabtay saddexdoodiiba jeelkii baa lagu hubsaday markii jeelkii lagu hubsaday ayaa waxa dhacday waxa la sameeyay marka waxa lagu weys qabsaday aad bay isku murmeen marka aad u murmeen de ninkii waxa aamusi waayay ninkii lacagta laga xaday waa aamusi waayay lacagteedii maxaa kiiskoodii la dhex galay gabar baa loo geeyay marka gabadhii dambi baarista ay kiiskoodii maxay dhex gashaa ninkan uu kadeedan yahay lacagteedii uu hayaa kadib gabadhii waxa ku tirkaalay saddexdoodii soo fadhiistay markay soo fadhiistay waxa tirkaalay sheekada ka sheekeynaya sheekada marka in ka sheekeeyo kadib baynu kiiskeena la geli doonaa hadda lacagteeda heli doontaa kadib waxay ku tiri waxay jiri jirtay gabadh ina boqor waxay ahayd gabar dhalinyaro oo da'yara marka gabadha daada yiri waxay ku dhacday maalin ceel bay ku dhacday yani meel biya ayay ku dhacday meesha haba ku dhacday ma xume waxa soo maray nin adigu iska dhalinyaro oo daadi soddonka meelaha maraya ninkii soddonka markuu marayay markuu soo maray ayuu gabadhii ceelka ka soo saaray gabadhii markuu ceelka ka soo saaray ayay waxay tiri waan ku abaalgudayaa abaalkaaga maxaan kugu abaalgudaa markaas wuxuu yiri dumar abaal ma lahe orodoo iga tagaan dumar abaal kuma doon marka dumar abaal may gabadhii ereygaas hadda maqay martube gabadhii waxay tiri dumar abaal weeleeyay ma laha marka kadib baa waxa dhacday waxay samaysay gabadhii waxay ku tiri dumarku abaal weeleeyeen ana ku abaalgudaa maxaan kugu abaalgudaa markaas wuxuu waxaad ugu abaalgudaa maalinka aad arooska tahay habeenkii adoo taashkii iyo qalabkii iyo wixii oo dhan xiran intaad ninkaaga ka timaado gurigayga u qaaday
وادي حرحلة أنا وهي قلت كدب قبلي وحي سمايساي وينات قبلي نكين ندوس كيلة قوية marka gabadhii maalinkii habeenkii arooska ahayd ay ballanka xirnayd ee taajkii xirnayd ee ay maxaa la yiraahdaa dahabkii xirnayd ay wixii dhan xirnayd ay soo xasuustay ballantii ninkii waxay ku tiri ninkii waagii kula ballamay ee dumar abaan male wuxuu ku xujay habeenkii aad tagto kadibna markii arooska wixii dhamaaday ay ninkii ku tiri waxay ku tiri ninkaygiyo nin noocaas ay jiray waayadii isagoo anoo yar guceel laga soo aray ninkaas marka wuxuu dumar abaan la male marka wuxuu ku xujay anoo taajka iyo silsiladii iyo dahabkii wixii dhan qoorta suran إن أنا قلت له هبين كجوري سي يفسح بيكتب ويقول واي يا ورد وسكت نكي قبل الخبي هبين كوصف صح أوكي يدو جد كذا الحس وصعته الذهب كذي يوم محل وحي وقت أسوي كامل وطاش كي حنا أي توك قبصتين توكتي مركي قبصتين وحيكون هن توك نعم الذهب بس كي حنا هبين قبصتين وين شانس فكروا مدوح إحنا عارفينه لما واحد كنت اللي عدنا نميه واحد شراء nin waagi anoo yar intuu ceel laga saaray wuuli dumar abaal ma lehe markay sii daayo dahabkayga iyo waxay dhamay waxaan iga furanine waxay u xujay habeenkan arooska aanu taajkayga dahabka wax walba inaan ugu tagay markay sii daayeen nimay waxna dad iga furataan ballankii wax maanayay sii daayay war waa naag waalaan waxna awrada iska tagay way sii daayeen iyaguna ninkii baa u tagtay gurigiisa ku garaacay gow ninkii uma uu iska hurday habeenkii waa sanad xilli aroos laga yimiyo markay ninkii ku soo qaqalacay wuxuu ku yiri kaas waayo waanigo leerkii u shaqo misana gabar saa u dhalaalayso aroos oo taajki xiran oo wixii oo dhan xiran kaas maxaa hayda markaas waxa ku tiri waa gabadha waagi ku tiri ceelka intaad ku saartay na boqor aad ku tiri dumar abaal ma lahayn aad xujada xidhay nama iska ciyaari yarooda iska tagu ku dhaar waxaan ma jirin ma iska kaftamiyay iska ciyaari yarooda iska tagu gaayso haddaba marka su'aashan weydiinaya waxay u tahay shirkadii oo dhan waa soo dhageysteen waad aragteen shirkada soo dhacaysa marka yima khaldan afartan kooxood ما قبل خالدن وواحد خالدن تهي بشيء قف كي هذا قبل خالدن وواحد خالدن تهي بشيء كي هذا توك تعفيه أو محل رنتري جدك يدو قلب يوحنا حرام أي سيداي كاسا وازنا كاسا سجى خالدن هدي كقف كلام الحوارنا يا واحد خالدن نكي عميس تمام هبين كنتو قبل يسألوا استدي مركي لو كنت تجي سودا صوف صحيح يقولي نعرض نكا بلانتك صوبه marka saddex laaqo afarta kooxood mid baa khaldane qof walbo adigu kay kula tahay inuu khaldan yahay badoo sheegta marka waxa la rabaa ninkii xujadii waa iska ciyaariyo waa iska kaftamiyo oo iska tag ayaa khaldan waa qof qoranaya qofka labaad oo qoranaya waxa khaldan kii tuuga ah isagoo sii daayay ka saddexaad waxa weeyaan ninka caruuska dhamaa ee habeenka gabadha iska soo fasaxay marka qof halkan bay kaga bilaabeen midibtu waa qofnimada dadka qofka ayaa lagu tijaabiyaa marka sheekada inta ugu dambeysay su'aasha la doonayay laga jawaabo hadii ku celiyo gabadh saddexda nin waxay isku qabsadeen baan ku oray hanti waxay marka hore waxay ku soo wadeesheen iyagoo aan wax hanti haysan markii ay meesha yimaadeen habeenkii seexdeenna nin kamida ayaa lacag ka soo dhacday lacagta haba ka soo dhacday ma xumee iskuma ogeyn lacag maynaysan ninna mugiraysan kadib baa waxa dhacday labadii nin baa aayad heshiyo kii kale wuxuu kiciyay wuxuu ninkii lacag buu istaaway ka garanayay inta soo rafaadeen labadoodii baa kala qaybsaday dadkii isku ogaanay subax magaalada galaan waxa muran iyo buuq soo kala dhex galay maxaa la oran jiray inay isku haystaan lacagta inay isku haystaan markaas taas problemkaasi wuxuu keenay dhibaato kale dhibaatada kale uu keenay waa maxay nimankii magaalada si yar oo dhumaalaysiya ku geli lahaa waagi hore ayuu ka baajiyay safarkoodii waagi hore kadibna wuxuu sabab u noqday in nimankii horta askartii waagi ku bariyo iyagoo is haystana oo aan meesha ka dhagaatay askartu yimaadaan waa problem labaad bay problemkii labaad wuxuu abuuray in nimankii la kaxeeyo oo xabsiga loo taxaabo maba xume xabsigii baa iyagii loo taxaabay xabsigii haddana waxay halkay si yar nabadgelya kiiskoodii loo baarlaa gabadhii kiis baarahayd bay problem saddexaad ku abuureen problem kale ku abuuran waxa weeye naantaana kiiskayga ila anaga horta gelin waxa samaysaa arrinteeda horta xal ila lacagteedii baa xalin ninkan ku degan yahay horta lacagteeda haysiya nimankana anagu waxba ma qaadan bay taageen marka si saddexdooda loo xaliyo arrintooda loo xaliyo haddana waxay noqotay in problemkii xal kale horta bar saddexdooda in la yara kala dejiyo in la keeno marka in wadanka waxay socdeen iyo sababihii kale waa calaamad su'aal kale waa su'aal kale oo baahan in la jawaabo qofka koowaad ee dhaha waxa khaldan ninkii sheekadan maxaa la oran jiray keenay qofka koowaad balantiisa aad u daciifa
dee sida sheekadu u qoran tahay answerkeed waxa weeyaan qofka koowaad waa qof aan balanta ilaalin aqoon waayo ninkan gabadhu maxaa la odhan jiray ninkani ballan buu gabadhii u geliyey ballanta ninkaa qofkaa markaa yidhaahdaa waxaa khaldan ninkii koowaad wuxuu leeyahay qofkaa ballantiisa daciife ballantaada ilaali waa qofka labaad ee yidhaahda waxaa khaldan kii tuuga ah qofka waxaa la leeyahay haddii aad jaanis tuugnimo aad aragto maad cafiin hayde marka qofka waxaa laga yahay waxyaabaha tuugnimada ee aad maskaxda tinkigaaga ku badan yani iska ilaali qof walba dhinaca ku badan qofka saddexaad ee yiraahdo waxa arag ninkii caruuska kaas waa hinaasiba isagu waa mas'uul badan yahay because of kalsoonidii waa ka maqan qofkaas oo way wuxuu oranayaa muxuu gabadha ninkii ma soo raaci waayay marka saddexdooda midna ma khaldane saddex waxa khaldan gabadha way marka anigu soo socday waxa weeyaan khaladka wax iskala gabadha way waxaan oo dhan dayada samaysay idinku waxaan idinku soo wareerinaya sheekada igu fahmi weydaan waxa weeye sheekooyinkii hore taxanaha marka ma doonay sheekooyinka hore taxanaha waxaan doonay inaan soo yara khalkhaliyo marka soo yara khalkhashaan oo soo wareertaan sheekada hore ku wareertaan tii labaad ku wareertaan tisa marka laakiin xalka la doonaya mid jawaabta la doonaya ayaa khaldan gabadha way gabadha ila ninka ku dhigtay ku tiri maxay anu kaama tiri ninka soo ma oran intuu meesha ka soo saaceen ka soo kuma oran naarada iska tag waxuu weydiiyay ma soo ma laakiin iyada ku dhigtay war dumarka baa beelay war dumar maxay iyada ku dhigtay soo ma marka khaladka iyada askale marka qofkii gabadha oran haddii ma jirin way dhicine walow aan qaybkood uga sheekeeyo dee ilaaween haddana waan uga sheekeeyo oo sheegay waliba jawaabta saxda haddana waa kuwa ilaaway oo Mustafa kamid ah waa kale ninkii gabadha soo daayay naasigiisa badan marka isbeddelku qofku si kasta waa xitaa sheekada wax ku garanaysaa inaan xitaa wax aan hadii qofku aan xiftii karin aan qaay logic Mustafa kamid buu ahaa abkar uu joogay maanta labadooda waa uga sheekeen qof walba meesha ku badan oo iska garanaysaa labadoodii maalintii hore joogay ee jawaabtii garanayay inuu Mustafa hinaasnimada ku baranta halkaas ku garanay abkar dhinaci kale ku badan tahay marka sheekada marka waxaan leeyahay marka sheekada waa sheeko caan ah oo qofnimada qofka lagu tijaabiyaa marka intaas ku soo gabagabeynaya waxa la leeyahay marka sheekada inta hore waxaad u qaadataan oo inta hore macalinku sheegay ku soo dawaqdeen inta hore waxa weeye maskaxda qofka la soo dejiyay la soo attention-kiisa la soo wareegay waayo inta hore uu soo jeedaa laakiin inta dambe uu khalkhali doono waxa weeyaan waa inta dambe xalka la doonaya in la gaarana waa xalka inta yar ee dambe la doonaya in xal laga gaaro aad baan mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh